caawa bartan waxaa kuu joogaa xanuunka cid kula wadaagaysa bilada sharafta ee ilaahay agtiisa kuu taalla iyo tay madaxda kuu haysaba haddaad curadadaadii weyday haddii caruur agoona lagaaga tegay waxaa garabkaaga taagay qaran ku shaqraya oo ku qiimaynaya waad mudan tahay ilaa intaad imanaysa ilaa intaad la tegayso in lagu kaco oo lagu sabciyo oo laguu bixinno dharkeega si aad u husaagto waa jaamac maxamed ismaaciil waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhallinyarada isxilqaamtay dadkooda haldoorka ah xusaysa aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad waxaan mahad celinayaa madaxweynaha dowladda Somaliland cabdiraxmaan salici qofka isagana kula wadaago qofkaasi halkan hadduu joogo wuxuu joogaa hospital kaste oo hooyo Somaliland ku umulayso wuxuu qalaa qof kastoo dhibaata ay ku timid wuxuu dhex fadhiyaa shirkadaha ganacsiga wuxuu garsoore ka yahay waaxaha garsoorka wuxuu injineer ka yahay shirkadaha dhismaha wuxuu jaangooyaa siyaasadda qaranka wuxuu xubin ka yahay ururada siyaasiga wuxuu talaya tusmo ku leeyahay madaxda hadba talada dalka haysa wuxuu dhiirigeliyaayo hooyo aabbow yahay kuwa caloosheenna ka soo baxay iyo kuwa soo dhalan doona wuxuu ka tegayaa taariikh sultan wuxuu Somaliland 30 sano jirto uu gashaday waxaan qof inaga naga mid gashan waa gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Ali Yusuf saddex qof oo Somaliland qiimo ku leh oo ka socda saddex hay'adood oo Somaliland qiimo ku leh waxa sugtaa ma waa inaan ku dhawaaqo qofka ku guuleystay abaalmarinta Somaliland ee 2018 ee qaybta social entrepreneur-ka aan ku dhawaaqo qofka ama hay'adda waa hay'adda shaqadoon waxaan jeclaan lahaa in loo sabciyo waxaan soo dhaweynayaa hay'adda shaqadoon qof ka socda بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومهدينا يا مدشع وحنا سيدا كلهم هدينا بدبرنامج هوية Somaliland أمين بدحنا بحياة جبلة Somaliland وأنا رأس بقيم لي حفلة أنت بدل كل عدة ولا يصير بقوليسته أنا وحرصنا إنها واحد بقوليسته إن أنا بديتها بشدينا وأتباهيه هذا تباشر شرف باني نوتها إن أنا ما تعرف إني ما ووحي أنا قبلني تذكر Somaliland أنا نقول هالعليان ومهسنته سيدا بشرفتنا وليش في دورنا dadaalkaygana tani waxay ka noqon doontaa barbirow iyo dhiirigelin aan la siiseen waanu sii dadaali doonaa jawaabtana waxaan fahmi doonaa isbeddelka bulshada awardkii xagga bacab mushtariga ee sanadlaha u tartamay saddexduba aad bay u dadaaleen saddexduba tartanka si fiican bay u qayb galeen laakiinse waxa weeye marka la isqabto dee laba wada guulaysto mid unbaa guulaysta haddaba waxaan ii sheegayaa iyadoo kooban sanadihii business of the year cid igu guulaysatay waxa weeyaan haldoor hospital waxaan leeyahay mabruuq waxaa mahadda koowaad iska leh ilaahiga raxmaanka ah labaadna waxaan soo jeedinayaa dhalinyarada maartay Inspire Group oo la timid fakarkan cusub anigu runtii maalintii la yeeray ganacsataha ka mid ah waan fakaro waxaan xagee ganacsiga ka soo galo
markii dambe maskaxdaydii baan baaray oo waxaan ogaaday ganacsiga ugu weyn ee bini aadamku qabto inaan anugu haysto waayo ilaahay wuxuu yidhi qof badbaadiyaa wuxuu badbaadiyey ummadda oo dhan marka caafimaadkaad ka shaqaynaysid ee aada qof naftiis badbaadinaysid qiimo ka weyn oo la heli karaa ma jiro ama lacag ka weyn oo la heli karaa ma jiro marka taas waa mid labaadii waxa weeye mabda'an ah in dadka la dhiirigeliyo in tartanka nolosha maaragtay lagu riixo isaguna waa wax qiimo leh balse wixii aan oran lahaa waxaan uga baxayaa waxaan ka baqayaa ereygan ah inuu siyaasadii la aaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xagga shuuriga hoteelka saw ee magaalada boorama kama qeyb gelin tartanka uu ka maqnaa marka waxa la qiimeeyey hoteelka damal ee berbera mardoora shiisanayay cafwan iyo kay berbera marka halkan aan hadda joogno waxaan ku dhawaaqaynaa halabuurka ganacsi ama halabuuraha ganacsi ee sanadka the entrepreneur of the year Why? Kay Berbera. Kay Berbera, the entrepreneur of the year. Oh, Cafe Berbera. Cafe Berbera, the entrepreneur of the year. Ano yan ya qofka metelaya Cafe Berbera. marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle sidaa heesta ku maqasheenna meesha keliya lagu qiimeeyo waa dalkaaga waxaan rajaynaynaa maanta wax badan baanu ka bedelnay food industry-ga sidii gabadhu ay sheegeen bankarka waxaa jira dad badan oo aaminsan in wax hagaagsan oo qiimo leh aan la keeni karin oo had yeeshee wax taya aada u hooseeya keena annagu waxaanu keennay wax runtii markii ka horreysay aan la rumaysanayn in lagu iibsanayo qiimaha aan ku iibinayno haddana maanta si wanaagsan u socday branchkii labaadna aan ku wadno masallaha kii saddexaadna aan eegayno boorame iyo xamarba marka waxaan ku shajicinayaa dadka dhallinyarada ama dadka kubadjooga inay yimaadaan oo dirsaan dalka oo wax gashadaan asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ku guulaystay the woman of the year halabuurka qofka dumarka ku guursatay aad iyo aad baan ugu faraxsanay anoo magaca dumarka ku hadlayana waan hambaliyaynayaa waxaana helay Bella Rosa maasha intaanan markaa ugu yeedhin qofka dhalinyarada ah ee ay wada sugaysaan waxaan u hambaleynayaa dhammaan ka qaybgalayaasha tartanka saddexdaba waan garanayaa adnaan cabdo maxamed yaasiin xasan sayid cali aan u yeedho xasan sayid cali oo noqday young personality of the year shacab halagu soo dhaweeyo sharaf bay noo tahay maasha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هلكن كسلام يا كحيان كجمهورية سوماليلاند ينمان وفد شرفت كلا جماعة بدل كسوق كشيء حفلة دين سوماليلاند أوردز. عن مرة بعدها مليانية إنسباير جروب ورنتي برنامج كان أنا بس مش قيسي. عن سيدا كل مرة بعدها مليانية شوري هاوشة كشيء إن أي كلا صارتو دمان كذي ترتمي جديد اللوزمي إن أي هاي in waddanku uu yeesho xaalad la isku karto oo qofba qofka uu kale
loogu tixgeliyo wixii uu qabtay waxaan halkan rabaa inaan uga mahadnaqo dadkii kale ila tartamayay oo ugu horeeyo Cadnaan Cabdo waxaan jeclaan lahaa inaad Cadnaan u saacabsaan Cadnaan isagista Cadnaan wuxuu u istaagay inuu wadanka ka dhaadhiciyo dhammaan bulshooyinka caalamka waxaa isku yimiday dhammaan warbaahiyeyaasha caalamka CNN oo maalin walba Hargeysa gudaheeda waraysiga kaga qaada waxaana uu caalamka u baahan yahay wuxuu caalamka u baahan yahay xaaladda ay ku jirto waddanka Soomaaliya waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Maxamed Yaasiin Sirista waa rajada geed beer waxa uu maray kasoo bilow Boorama ilaa iyo Cerigabo waxaana uu gaarsiiyey 1500 oo geed waxa uu leeyahay network ka badan dhowr kun oo dhalinyaro waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahay hay'addiisa waxaan mar labaad jeclaan lahaa inay labadooduba halkan ila yimaadaan oo shahaadadii la gudoomaan inaan ku dhawaaqo cidda ku guulaysatay sanadkan wax soo saarka dalka cidda awaalkooda heshay waxa weeye shirkadda Maandeen Bolteri la soo dhaweeyay cidda ku guulaysatay waxay wax badan laga kaartay beeda dalka awal Yaman iyo Ethiopia meelo kale laga keeni jiray aad aad u mahadsantihiin شعبك يقول الله waxaan kulley aan doonayaa inaan kelmad muhiima idhaahdo ganacsatada tartan baa bilaabmay xaaladdu way isbedeshay sidii hore maaha iminka waxaan ku talinayaa ninka daqiiqda keeno warshadii daqiiqda samee nin kastooba waxa aad waddanka keento ee aad dibadda ka keentay ee aad waddan kale ku dhisayso dalkaaga ku dhis intaasi waa iga ganacsatada xukuumadda lafteedana waxaan kula talinayaa soo dhaweynta ha idiin kala socnaado ganac saddex qolo oo saddexduba xaq idinku leeyihiin ninka ganacsadaha ah ee jaadka keena iyo ninka ganacsadaha ah ee sigaar keena iyo ninka ganacsada ee cunto sameeya dalku wax ka soo saara sida u kala saari lahaydeen saddexduba waa muwaadiniin xuquuq simanna way leeyihiin laakiin wixii aad ku kala saari lahaydeen lagu kala dheerayn lahaa dowladda looga fadhiya taasina waa qodada shacabkana waxaan leeyahay ninka dalka wax ku soo kordhiya ee keena iminka daqiiqda marka maqashaan in warshad daqiiqeed la sameeyey ee ninkii daqiiqda faransiiska keeni jiray mudaharaado hala reer noqonin oo haysgarab taaginaya ninka dalka wax soo saareen raaco asalaamu calaykum waxaa ku guulaystay saddexdaa kooxood inuu noqdo kooxdii ugu wanaagsanayd ee dalka wax wanaagsan kusoo kordhisa cidda deegaanka inoo dhowrtay ee dhuxusha si aynu uga maarano shirkad keentay Haas Group shirkadda Haaskaas oo halkan lagu maamusay inay runtii ay yihiin ciddii ugu wanaagsanayd ee sanadkan soo kordhisay fikrad wanaagsan oo dalka wanaagsan goorda baynu joognaa hadal badan uma baahnidin waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaa mahadle tiimka Inspire Group iyo guddidii qiimaynta ee kala xushay farxad bay noo tahay inaanu ku guulaysano innovationkii sanadka ee Somaliland Awards tani wuxuu bay nagu dhiirigelinaysaa inaan hore u sii wadno shaqadii aan dalka u haynay intii naalkan fadhidana waxaan rajaynayaa inaad gaastaa casriga ay ka faa'iidaysan doontaan oo qaadan doontaan sanadka ku guulaysatay waana mahadsantahay wasalaamu calaykum